بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay taariikhdu tahay 20 bishii 12aad 2022 maalin isniina waxaan shirkeyga jiraad ku saabsan yahay meeshan aad u jeedaan oo ah meeshii xaruntii ciidanka badda ay lahaayeen oo aad u jeedaan sida loo dhisanayo marka taa hadda inta kaga gudbo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu u xil saaran yahay ilaalinta iyo dhowrista qaranka Soomaaliyeed iyo ilaalinta shacabka ummadda Soomaaliyeed waad ogtiin wuxuu dhigooda mar walba u bixinaya waad oo cadawga ummadda Soomaaliyeed ragaadiyay uga ilaalinaya dhigiisa mar walba ugu bixinaya waa inuu dalka dhaartii uu maray uu fuliyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aad ogtiin duruufo adag inuu soo maray iyo marxalado kala duwan isagoo mar walba u heelan sidoo qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda shacabka Soomaaliyeed oo ilaalin lahaa inta ka bacdi waxa jirta ciidanka badda Soomaaliyeed oo mar walba ku heelan inay ilaaliyaan una xil saaran baddeena Soomaaliya si ay u ilaaliyaan biyaha badda iyo xuduudaheena waxa jirta ciidanka baddu inuu leeyahay hantiyo badan oo maguurto ah oo ay siyaabo kala duwan u isticmaalaan wad la socotaan ciidanka baddu waayatan wuxuu gaaray horumar la taaban karo oo lagu tayeynayo ciidanka agabkiisa iyo xagga ciidannimadaba ciidanka baddu marka wuxuu u xil saaran yahay inuu ilaaliyo oo dhowro biyahaas Soomaaliya aan lagu soo xadgudbin ayna ilaaliyaan waajibaadka ka saaran waxa nasiib darro ah in ciidankii badda dhulkiisii oo aad u jeedaan oo loogu talagalay meeshii ay ka dhisan lahaayeen xafiisyada ama aanu halkaan ugu talagalnay in dan shakhsiyadeed loo qaato waxa danta shakhsiga ah oo la rabo in laga dhisto guryo lagu raaxaysto guryo lagu maaragtay lagu nasto oo inay hormeed u yihiin madaxda qaranka ugu sareysa waxa nasiib darro ah oo ciidankii badda iyo difaaca xeebaha ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhabar jab iyo moral jab ku noqotay in dhulkoodii ay boob ay ku dhisanayaan madaxda qaranka ugu sareysay oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha qaranka Maxamed Xuseen Rooble waxa ayaan darro ah in la hunguriyeeyo hantida maguurtada ee u hartay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leenahay wax soconaya maaha wax la qaadan karana maaha wax la aqbali karana maaha in madaxda dalka ugu sareysay ra'iisul wasaarihii wadanka ugu sareeyay oo boob raba inuu ku dhisto guri shakhsiya oo deegaana inuu ugu dhisto meeshii loogu talagalay in looga dhiso xafiisyada ciidanka badda ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxaanu madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in aanan aqbali doonin in hantidii ummadda Soomaaliyeed ee ciidanka aanu u dhaaranay in boob lagu dhisto waxaanan marxaanti marnaba ka noqonayn aanan qaadanayn in mar walba ama la isugu cagajugleeyo ama la yiraahdo xil baa laga tagayaa ama xil baa la isaga qaadayaa haddaanu hadda ka tagayno xilka waxaanu u dhaaranay inaanu dalka iyo diinta ilaalino waxaanu u dhaaranay inaanu hantidii ummadda Soomaaliyeed aanu ilaalino waxaanu u dhaaranay in dhiigayaga u bixino oo u shubno inaanu ummadda Soomaaliyeed difaacno inta aanu u dhaaranay ka been sheegmayno marxaanti ka noqon mayno meesha annagu aanu xukunno ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ana mas'uulka marxaantina ka ahaan mayo in dusheeda wax lagu boobo mana ka yeelin cagjuleen baan qaadanayn xilku waa meerto haddaan ka degaynaa laakiin inta aan joogo lagama yaabo in lagu soo xadgudbo hanti qaran leedahay in la boobo shacabka Soomaaliyeedna in la boobo way anaga dhiigayaga u hurnay anaga dhiigayaga u bixinay anaga dhiigayaga aanu ugu talagalnay inay nabad ku noolaa inaanu argagixisada kaga ilaalino baalki laakiin uma aanayma inaan dhulka boobno waxaan leenahay madaxda qaranka ugu sareysa iyo shacabkaba in laga hor yimaado boobka kan aan meelna la isugu soo gabanayn oo la rabo in lagu caadeysto dhulkii xoogga dalka Soomaaliyeed ee leedahay
aad baa u mahadsantihiin waa idin salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم آدي أدا يوم هاسنتهين إماشينا أدي وتمادين هويجا أنكتشو مقالة بيدبو و إميد صفر شقو موضوع هذا جوار السنة السنة وهذا لحوريجية برهب بالشدة أو تليها أيضا كبدا الصوماليات أو آذانية رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصوماليana runtii dhowr nooc markan ka eegaba wax argagax igu ahayd waa midda koowaad anigu generaalka ciidamada dalka ugu sareeyana ethicska ciidanka marna ma noqon karto in generaal ama sarkaal sare ama sarkaal ama qof xil ciidan leh wuxuu rabo ahaaday inta hore la ekaaday oo meediyaha ka eedeeyo madaxda qaranka ee dalka ugu sareysa taas waa runtii arrin aan aad iyo aad aan uga xumahay ugana cudur daaranayo dhammaan ummadayda iyo ciidamada qalabka sidaba maxaa dhacay waxna qabta maaha taas markaan ka gudbo midda labaad waxaa weeye oo aad iigu timaadeen inaad igaga wareysataan arrintan aan kaga warramo meesha laga hadlayo anaa wax ka degan meeshu waa meel dhul yar oo dhowr generaal ay degan yihiin dhul ka dambeeya meel kasii dambeysa wey meesha generaaladu degan yihiinna waxay ku degan yihiin ogolaasho iyo amar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya anagoo aad iyo aad ugu bogaadinayna waxayna u badan yihiin kulli jaranno shaqo badan soo qabtay dalkaana ka soo shaqeeyay mudnaana in la siiyo abaalmarintaas iyo hooy maadaama ay in badan dalkan u soo shaqeeyeen oo dhulkaas loogu deeqay amar madaxweyne in ay ku noolaadaan dhulka hadda laga hadlayo oo la iga tusay clipka adiga tusteen dhulkaas waa dhul annaga naga dambeeya oo yar waana bad xeeb waay maana dhul ahaan u ahaa ma ahayn dhulku wuxuu ku dhamaadaa guriga anigu aan deganahay ayuu ku dhamaadaa dhulka rasmiga waa dhul ka hor yaalay xeebta iyo safaaradda Turkiga dhabarkeeda dambe meel u dhaxaysa ku yaala waa ogaanshahayga iyo taariikhda aan dalkan ku aqaano horta dhulkaas dhul ciidan ma ahayn ciidan ma lahayn marka hore waxay ahayd dekeday ka tirsanayd dhul caadi u iska ahaa waa tii dhulkii dekeda loo qaybiyay safaaradda Imaaraadka iyo safaaradda Turkiga qaybta safaaradda Turkiga ay degan tahay waxa waagi hore ku ooli jiray taliska ciidanka badda Soomaaliyeed hase yeeshee xukuumaddii kacaanka intay jirtay ayaa laga wareejiyay lagana dhigay taliska ciidanka badda Soomaaliyeed meesha hadda loo yaqaano Marina loo yaqaano oo aad wada garanaysaan oo degmada Kaarana xafiiskii taliyaha iyo taliska ciidanka badda Soomaaliyeedna halkaas ayuu ka yaala asagoo guri 3 ilaa 4 dabaqa dhul weyn haysta ayuu ku yaala halkaas degan taariikhda marka horta sidaas weey waa jiri jirta waagii hore in qaybta safaaradda Turkiga qayb yar oo kamid ah ay deganaan jireen taliska ciidanka badda intaan loo dhisin muxuu ahaa dhismaha weyn iyo muxuu ahaa hooyga taliska ciidanka badda Soomaaliyeed ay ku shaqeynayeen haddii maantay ay ujeedadu genuine tahay oo mid sax ay tahay waxay ahayd in laga hadlo oo la dhiso oo la dayactiro oo la qurxiyo taliskii guud ee ciidanka badda Soomaaliyeed oo taliskoodu halkaas ku yaalo marna ma garan maskaxdeeduna ma qaadan karto in dhul xeeb ah oo muxuu ahaa qashinka ka yimaada badda ka yimaada ilaa jasiiro looga soo shubo Xamarweyne Shangaani meeshay isugu yimaadeen ahayd in la yiraahdo talis ciidan bad ayuu noqon lahaa maba noqon karo talisna ma noqon karo meel looga soo garana male horena waxa ka degan guryahaas jaraanada ay degan yihiin ba ku yaala gadaalna waxa dhinac kalena ka degan safaaradda Turkiga ee dalkeena anigu markaan maskaxdayda la tashtay aan arkay waxaan isleeyahay waxaanu ma waxyaabihi aan ka soo gudubnay wax inoo jeeynaya ma waxa ka dambeeya
wax aynan fahmi karin oo la rabo dalkeenu muddadan xasaasiga ah oo uu ku jiro doorashada oo doorashada loo dhaqaaqay oo weliba ayaamahan dambe sidaan idaacadaha wax ula soconay bogaadin iyo in wax la dhaqaajiyo inay horumar la sameynayo in maaragtay muxuu ahaa uu ku soo noqonayso doorashadu wax lagu wada kalsoonaan karo oo mucaarad iyo maxaafadba laysku raacsanaa oo halkaas ku socotay ma yaa yani hayla yaabeen haddaan irahdo ma waxaa la raadinayaa waxyaabo kale oo set up ah oo laga shaqeynayo oo ah in loo qaato generaal ciidamada ka tirsan hadduu hadlo in madaxweynaha jamhuuriyadda kale ka dambeeyo kama dambeeyo mana aaminsana inuu ka dambeeyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna intaan ka ogahay wada shaqayn iyo is-ixtiraam iyo ra-iisul wasaare iyo madaxweynihiisa iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihiisa loo shaqeeya taasuna waa midda idadiilada iyo wanaagga ummadda soo gelisay waa midda dhaqaajisay muxuu ahaa inay doorashada socoto waa midda horey looga soo afjaray khilaafkii aan aniguba qeybta ka ahaa magacaabistii la ii magacaabay xilkii markaas ra-isul wasaare ii magacaabay taliyaha nabad sugidda oon ku qanacnay in aan dalka suu horey ugu socdo si madaxda su aaminto uusan qofna kursiga la ii magacaabay intuu yar uusan ku dhigin meel kastoo kaloon ummadda uga shaqayn karna aan uga shaqayno annagoo ka shaqaynayna isu soo jiidista iyo isu soo dhawaanshaha iyo wada shaqaynta madaxdeena dalka gaar ahaan labada xafiis ee dalka madaxweynihii ugu sarreeyay dalka iyo ra-iisul wasaarihii oo executive-ka ama fulintii dalka ugu sarreeyay waxaan leenahay qof kasta oo ay dhici karto in uu isleeyahay in ay layska hor keeno iska hor imaan mayaan soomaaliyana aqbali mayso caqliga wanaagsanna aqbali mayo madaxweynaha jamhuuriyadda aqbali mayo ra-iisul wasaarahuna aqbali mayo qofkii taas ku fakarayo canuuftaada dib u liq dalkan hore u soconaya doorashuu gelayaa ra-iisul wasaaruhu hawsha u hayo iyo muxuu ahaa dadaalka uu ku jiro ayuu diyaar u noqday inuu u eedoobo dalkan siduu u gaarsiin lahaa doorasho madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu si cad u caddeeyey in uu ku garab siin doono gacanna ku siin doono ra-iisul wasaaraha jamhuuriyaddu inuu xilkiisaas guto qofkii dane ka haysow ka bax wallahi kuma qaado dalkaana ma qaado dibna u noqon mayno mana akhrisanayno ummaddaanuna yeeli mayso ilaahay amarkiisana iyo idinkiisana horaan u soconaynaa dalkaana wuxuu aadayaa doorasho wuxuu aadayaa wadadii keliya ee horumarka iyo is-aaminka oo ah in doorasho la aado qofkii dalkan dan ka hayso inuu doorashadaas ummadda Soomaaliya ugu qaban karana asagoo sharfan oo qiimaysan ha tartamo kii xildhibaan doonanaya kii xil ka sarreeya doonanaya kii muxuu hawaaba soo dhamaaday aqalkiisa la raasanayay waa hambalyeynaya hawshu yaysan marna inaga gelin in madaxdeena la isku gargaraaco madaxweynaha jamhuuriyaddu waa madaxweynihii ugu sarreeyay jamhuuriyaddan ra-iisul wasaaruhu waa shakhsigii ugu sarreeyay executive dalka aan sheegto inaan ahay jananka ugu sarreeya daraj ahaan ciidamada Soomaaliya madaxda iyadu isqabsan mayso kana rajayn mayno la iskama horkeeni karo waxaan leenahay guushu waa wada jirkiina guushu waa dalkeena doorasho aada ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu wadadaas nagu duwo wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu codka Soomaalida TV waa channel u hadla dadka aan codka lahayn u baahiye baahiyahooda waana bilaa shuruude fadlan si aad noogu soo biirto subscribe dhaho nalana wadaag fikradahaaga noona sheeg inaad naga heshay kale oo like saar